ciidanka bilayska degmada Togwajaale ayaa habeennimadii xalay toole gacanta ku soo dhigay dhalinyaro sideetay xashiishad oo kamida mukhaadaraadka saameeya caafimaadka maskaxda aadamaha waxaana warfiidiyeenka uga warbixiyay qaabkii ay u soo qabteen iyo cidii sideetayba taliyaha ciidanka bilayska degmada Togwajaale gaashaanle dhexe Maxamed Case gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi Togwajaale mudane Mursal Nuux Ismaan iyagoo uga digay cid kasto isku dayda inay mukhaadaraad noocaasi soo galiyaan dalka waxaana kamid ah hadaladoodii shalay galab markay saacadu ahayd shantii waxaanu qabanay 3 kiilo oo xashiishada waxaanu ku qabanay 2 nin labadan nin aanu ku qabanay waa 2 nin oo Itoobiyaan mid waa Soomaali Itoobiyaan midna waa Xabash aan oo afka garan maayo labadan xashiishada waxa kala soo talaabeen daanta markii ay magaalada soo galeen baan warkooda helay marka araseenka iyo 2 askari baan u diray sidaas lagu soo qabtay xashiishaduna waa taas oo arkaysan waxaan muddo badan baan keenaynay beediyeen muddo badan baan keenaynay markii aan nimanka wareys ka qaadnay aan wax ka qoray muddo badan baan keenaynay marka waxa weeye dadweynaha reer Soomaaliland ama reer Wajaale waxaan ogeysiinayaa in xashadaas ay ugu badan tahay Khadar Cabdi Cabdillaahi telefishinka caalamiga ee Somali News degmada Togwajaale.